sheekadan waxay ku dhacday xilli aan jiray 22 sano. Maalin maalmaha ka mid ah, aabbahay ayaa wuxuu igu yidhi, waad inaa baxdaa ama malaay noo soo gaadaa. Waxaan ka soo tagay guriga, weliba anigoo nabad qaba. Xilligaas waxaan xiisayn jiray in aan malaayga si wanaagsan aan u gaado. Waxaan imaaday sidaan u socday webiga. Kadibna waxaan gudagalay hawshiidii ahayd in malaayga aan gaado. Waxaan mar sikadis ku arkay shimbiro aan weliga aan arkin intaan noolaa. Waxay ahaayeen 2 shimbir oo waaweyn, waxayna ku soconayeen geedka. Baar ayaan fiirinayay. Codad nooc kalan way lahaayeen, way dhawaaqayeen. Mid ka mid ayaa igu soo duushay, weliba iyadoo madaxayga agteeda ku soo duushay. Aad iyo aad baan u yaabay. Intaan fiirinayay shimbiraha ayaa waxaan ku arkay meesha inuu nin taagan yahay. Malaa waxaan u mooday in shimbiraha asaga uu soo buriyey. Mar walba anigana waan ka taxadiri jiray oo waxaan soo qaatay bistoolad haddii ay wax dhacaan si aan isugu difaaco. Wuxuu ahaa nin wata jaakad. Wejigiisana si fiican maan u arkaynin. Markaan arkayna aad iyo aad baan u naxay. Weliba wuxuu lahaa indho waaweyn. Aniga waxaan oo kale aad iyo aad baan ugu baqaa. Waan cabsaday, aad iyo aad baan u baqay. Waxaa mar sikadiisa igu yimid dhidid aad iyo aad fara badan. Weliba anigoo baqaya in weydilay in kale. Waxaan soo qaatay alaabtaydii oo marka aan ku gaadayay malaayga. Kadibna aayar ayaan ugu soo dhaqaaqay meesha aan joogay. Weliba anigoo cabsanaya. Mar waliba waxaan fiirinayay geesaha in uu soo socdo ninkii in kale. Aad iyo aad baan u cabsanayay. Meesha daddan ma is joogin, waxay ahayd meel keema ah. Ilaa ninka aan ka dareemo socodkiisa. Anigana aad iyo aad baan ugu soo cararay, weliba anigoo aad iyo aad u ordaya. Weliba aad iyo aad baan u neeftuurayay. Xitaa waan daalay saan isu socday. Ilaa waxaan ka bariyay ninkan inuusan i qabanin. Markii aan dareemay in guriga aan isu dhawaaday, ayaan xoogaa dhaqdhaqaaq sameeyay. Weliba anigoo tusay reerkayga in aan ahay nin geesi ah. Reerkoo idil ayaa maqlay xabad. Weliba waxaan ku orday guriga anigoo aad iyo aad u ordaya. Markii aan guriga soo galay, ayaa dadku dhan waa ay wada mashquulsanaayeen. Waxaan wacay saaxiibkayga. Asaga ayaa ii yimid. Kadibna armaajada qori saarnaa ayaan soo baxsaday. Weliba anigoo raba hadduu ninka meeshaan soo gaaro si aan isaga difaaco. Maalinkaas ayay ahayd maalinkii aad iyo aad igu naxdinta badnayd. Oo dadku dhan way i weydiinayeen waxay ku dhacay. Aabbahay ayaa wuxuu igu yidhi meeshaas aad iyo aad bay u dhib badan tahay. Maalin maalmaha ka mid ah sidaan camal ayaa igu dhacday aniga xitaa.